السلام عليكم soo dhawaada asxaabta halkan waa Burqatoob maanta muuqaalkeena waxaan kaga hadli doonaa dayax-madoobaadkii dhacay iyo wadamada uu ka dhacay iyo guud ahaan dayax-madoobaadka inta qayb ee loo qaybiyo laakiin ka hor inta aan muuqaalka u galin fadlan hadaan ugu cusub subscribe noo saar like share si aad u sii gaarsiinaya asxaabtaada kale haddaba dhaxroorka qoraxda ayaa waxaa lagu sheegaa 864,000 oo mayl ayaa si buuxda 400 oo jeer ka weyn dayaxa kaasoo lagu qiyaaso 2,160 mayl laakiin dayaxa ayaa waxa uu sidoo kale 400 oo jeer u dhow yahay dhulka markii loo fiiriyo qoraxda qorax-madoobaadka ayaa waxaa si guud ahaan loo qaybiyaa 3 qaybood qaybta koowaad ayaa waxaa lagu magacaabaa partial solar eclipse qaybtan oo ah in iftiinka qoraxda ay qayb ka soo muuqato halka qaybta kale uu dayaxa qarinayo tani ayaa waxaa u sabab ah in dayaxa uu qarinayo qoraxda qayb kamid ah haddii aan isla soo eegno qaybta labaadna waxaa la dhahaa total solar eclipse qaybtan ayaa ah in qoraxda ay gabi ahaanteedba qarsoonto taasoo sabab u ah in dayaxa uu ka weyn yahay iftiinka qoraxda halka dayaxa uu qariyo gabi ahaanteedba iftiinka qoraxda haddaba qayb saddexaad ayaa waxaa lagu magacaabaa annual solar eclipse haddaba qaybtan ayaa waxa ay tahay in dayaxa uu ku aado bartamaha qoraxda tani ayaa waxaa sidoo kale la dhahaa hyper solar eclipse tan ayaa sidoo kale waxa ay tahay in la arko labada qayb ee qorax-madoobaadka ah in dayaxa uu qayb ka qariyo iftiinka qoraxda iyo in uu gabi ahaantiis qariyo haddaba qorax-madoobaadkan ayaa waxaa la sheegaa in haddii la fiiriyo ay ka imaan karaan dhibaatooyin ku aadan aragga haddii aadan isticmaalin ookiyaalaha loogu talagalay in la isticmaalo sidoo kale rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayaa waxa uu na faray in salaad la tukado markii la arko qorax-madoobaadkan haddaba maanta ay taariikhdu ku beegan tahay 21 June ayaa waxaa la arkay qorax-madoobaadkii koowaad ee sanadka waxaana laga arkay wadamo badan oo Afrika ah bariga iyo koonfurta Afrika koonfurta iyo bariga Yurub Aasiya qaybo badan oo kamid ah waqooyiga Australia qorax-madoobaadka laga arkay ayaa waxaa la dhahaa total solar eclipse qorax-madoobaadkan ayaa waxaa laga arkay wadamada Jamhuuriyadda Dhexe ee Afrika Congo Ethiopia wadamo kamid ah iyo qaar kamid ah khaliijka koonfurta iyo waqooyiga Pakistan koonfurta Pakistan iyo waqooyiga Hindiya iyo China halka Soomaaliya iyo Somaliland ay kamid tahay wadamada laga arkay in qoraxdu ay qayb ka muuqato dayaxa uu qayb ka qariyo ama uu dayaxa qayb kamid qoraxda uu qariyo sidoo kale bariga Afrika iyo waqooyiga Afrika ayaa waxaa laga arkay qorax-madoobaadkan waxaa sidoo kale Soomaaliya iyo Somaliland laga arkay waqtiga markii ay ku beegnayd 6:48 subaxnimo waxaana si fiican loo arkay markii saacada ku beegnayd 7:54 subaxnimo ama 1:54 haddaba halkaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa muuqaalkeena maanta waxaan rajeynayaa inaad wax badan ka faa'iidaan insha Allah ka hor inta aan muuqaalka ku xiga aan ku kulmi doono waxaan idin leeyahay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.